كونكن الله سبحانه وتعالى مركو سميي اسكمونا سامينين أسوغو فوضى سيدتك قارو ملاينيان بل الله سبحانه وتعالى وحو دسي ودجيي قوانين لغو كلا سعودو لغو كلا دنبيو waxaa qawaaniinta kamida basharka dhaxdooda si iskula tacaamuli lahaayeen qofka muslimka ah qofka walaalkiisa kale muslimka ah wuxuu ku leeyahay xuquuq iyo waajibaad ayuu ku leeyahay xuquuqdaas oo kamid tahay inuu qofka walaalka ahi markuu ku salaamo aad salaantiisa radiso marka uu qofku uu hindisoodo karo alxamdulillah dhaho inaad aad yarxamka allah dhahdo ama markuu kugu yeedho muraad uu leeyahay inaad ajiibto marka xuquuqdaasi badan culimadu laba ay u kala qaybiyeen midna waxay dhaheen waa ku fardi kifaaya midna waa ciini bimacnaa midna waa mid hadday muslimiinta qaarkood kaleeta u istaagaan adiga kaa dhacay shakhsi ahaantaada kuna waa ku adiga shakhsi ahaan kugu waajibay oo kugu qumay naftaada oo walaalka inaad u samayso mooyaane aanan qof kale kaa qaadi karin marka waxaa looga baahan yahay qof walba qofka walaalkaaga muslimka ee kaleeta inaad ilaaliso xuquuqdiisa waxaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato markuu xanuunsan yahay ood soo booqato waxaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato markuu baahan yahay ood caawisood baahidiisa uga gargaarto waxaa lagaaga baahan yahay inaad walaalka wanaag caloosha ugu hayso waxaa kaloo lagaaga baahan yahay in walaalka aad ogaato ood xumaantiisa aad ogaanin aad ahaato qof wanaagiisa mar walba hayo oo og waxaa lagaaga baahan yahay wanaag walaalka markaad ogtahay wixii khalad uu ku jiro inaad ka qabato wixii wanaag uu ku jirana aad ku boorido intaana badan waxaan isaga badanahay xumatashiilka iyo inaad xumaanada faafino intaasi oo dhan lagama mudno walaalka man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawrata nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku lahaa qofka dabagalo walaalkiisa cawraadkiisa asna allah subxaanahu watacaala ayaa dabagalo allah hadduu ku dabagalana wuu ku fadeexeeyaa fadeexeynta allah subxaanahu watacaala baana ka daran wuxuu kugu fadeexeeyaa haba ahaato gurigaaga kala barhkiisa markii uu nabi sal slam sidaa leeyahay wuxuu ilaalinayay qofka walaalka ah xurumaadkiisa iyo naftiisa waxa ay leedahay ee asaga goonida ah ee banaanada wadaysa iyo caraadiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa marna waxaa la ilaaliyay walaaltinimada idinka dhaxayso oo waxaa lidin yidhi deriskaaga iyo walaalkaaga deriska ah ka warhay qofka muslimka ah man lam yu'min jaarahu bawaa'iqahu waxaa muslim ma ahan qofkii uuna qofka walaalkiisa deriskiisa dhibabkiisa ka magan islaamnimadii oo dhan baa lagaaga saaray mar kaleeto waxaa lagu siiyey xuquuqda idinka dhaxaysa tijaaha alfard oo qofka shakhsiga idinka dhaxayso oo waa markan lagu leeyahay hadduu ku yeedho ajiib hadduu hindhisoodo maxaa la dhihi jiray uu dhaho alxamdulilah u duce oo ilaahay yarxamka allah dheh marna waa markan lagu leeyahay xanuunkiisii ogow oo kor joog oo soo booqo midna waxaa weeyaan midka lagu yidhi markuu dhinto oo meesha qofka bani aadamka ugu dambeysa duniyadan iyo xuquuqda uu ku lahaa ee ugu dambeysa ah ina aad janaasadiisii ka qayb gasho ood wanaajiso meydkiisa inkastoo taasi tahay fardu cayn oo ummadda oo dhan hadday qayb kaa qaado ay kaa dhacayso marka walaalayaal waxaana looga baahan yahay haddaan nahay dad Soomaali ah haddaan nahay dad walaalo islaam ah inaan noqono dad is ilaaliyo oo is ogaado xuquuqda aan isku leenahay ummadahan qabiil isku caayayo aakhiradii madaada waxaa iman doonto qabiilkaasi dhan id u gaftay inay ku qabsadaan ma u haysa xasanaad waa maya qof dhan baa soo fadhiisanayo social media markaasuu muslimiintii maanta oo dhan ruugaya marka waa ku nin taabici ah yidhi nin intuu wax ka sheegay ma waxaad ma ku duushay Rome mayuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi war kuwii kaleeto ma la dagaashay Turkiga mayuu yidhi markaa Turkigu de niman gaalo oo lala dagaalamay ahayn hadda dadkan islaamka ma ahayn marka wuxuu yidhi ma waxaa kaa magan galay Rome iyo Turkiga walaalkaaga muslimka ah ee kula dhashay ee kuwa islaamnimada kula wadaagana ma kaa magan gali lahayd say taabiciinteenu ahaayeen acraadda walaalahooda u ilaalin jireen marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan ka feejignaano oon mid walba midka kale uu u dhowro xuquuqda aan isku leenahay haddaan intaasi bes isu ilaalin lahayn
waxaan ahaan lahayn bulsho ishaysato wanaagana faafiso horumar iyo dheeraadna gaadho. waxaan meel lala gaadhi la-ana waa hagardaamada mid walba midka kale ugu maqan yahay. laa taxaasaduuna sacsalami, mid walbana midka kale oo xasadnimo ugu maqan yahay. laa tajasasuu baa layidhi, mid walba midka kale warxuma tashiilkiisii iyo ceeba dabagelkiisii ku maqan yahay. marka walaalayaalow si islaamnimadeena aan u ilaashano, walaaltinimadeennana aan u ilaashano. qof walba waxaad barataa qofka ka walaalkaaga ee muslimka ah diintu waa dowlad dhan oo kaamil oo guurayso wax walba oo qawaaniinteeda wadatee aakharana waa lagu su-aaliyey. baro walaalkaaga muslimka ahi muxuu kugu leeyahay, maxaad se adiga ku leedahay. waxaad adiga ku leedahay waad u cafiyi kartaa, laakiin wuxuu asaga kugu leeyahay ee dayacdo maalinta yawmal qiyaama ayaa lagaa goynaya ayad wax kuu cafin ma laha. haddii aad ku xadgudubta cirdigiisana haddaada asaga cafis weydiisanin lagu cafin maayo. marka waxyaaba badan baa jiro, waxaa dambeeya qiyaamo iyo xisaabtii allah subxaanahu watacaala, maadaama taa wada dareensan oon islaam nahay. hala is ilaaliyo qof walba uu qofka walaalka ee muslimka ah ilaali xuquuqda uu kugu leeyahay. kaftankan iyo kajankan dadka loo leynayo ee dhiigooda loo galayana hala daayo. nin walba waa ilaahay usoo noqo. allah subxaanahu watacaala inaan usoo noqonaan u baahannahay, inaan walaaltinimadeennii xaqiijino soomaaliya baan u baahannahay. marka sidaan ku midoobi lahayn in walaalo ku noqon lahayn ha laga dadaalo. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.